kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahinta Banaadir online kusoo dhawaada warka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta soo xiray imtixaanka shahaadiga ay ka soconay maalmihii la soo dhaafay gudaha dalka Soomaaliya Cabdalla Maxamed Maaxi oo Muqdisho lagu diray isagoo ka soo baxay masjid warkan ayaad ku daawan doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 31 bisha shanaad May 2019 u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ayna ku bilownay Cabdalla Maxamed Maaxi ayaa waxa lagu diray masjid ku yaala gudaha magaalada Muqdisho Cabdalla Maxamed Maaxi oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa maanta lagu diray degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda KBB ee degmadaasi Hodan ee gobolkani Banaadir Cabdalla Maxamed ayaa markii la dilay waxa uu ka soo baxay masjid ku soo dukaday salaada Jimcaha dablay biskuulada ku hubeysanaya dilkaasi ka dambeeyay waxaana dil kadib isaga baxsan goobta waxaana halkaas soo gaaray ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo meesha ka sameeyay baaritaano dhalinyaro fara badan lagu soo qabqabtay Allah ha u naxariistay Cabdalla ayaa waxa uu kamid ahaa dhalinyarada ku nool degmada Afgooye balse Muqdisho ayuu u yimaaday waxbarasho waxaana wali la ogeyn dadkii ka dambeeyay dilkiisa iyo sababta loo dilay ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi wiilka dhalinyarada ah ee laamaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya wali kama aysan hadal dilkani maanta ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inta badan waxa ka dhaca dilal loo geysto askarta dawladda iyo dadka shacabka ah ilaa haddana xarakada al-shabaab dilkaasi mas'uuliyadiisa ma aysan sheegan dilalka inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho waxa mas'uuliyadooda dusha u rita xarakada al-shabaab waxayna sheegaan in dilalkaasi ayagu ay ka dambeeyeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka maalmihii la soo dhaafay ka soconayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo uu heliyay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo xireen imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka si guul iyo nabadana ku soo gabagabay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqday xarunta Gahayr ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo kamid ah goobaha imtixaankani maalmihii la soo dhaafay ka socday oo ogaado xaaladda ardayda galaysa imtixaanka dugsiga sare ee dalka oo maanta oo Jimcaha la soo gabagabeynayay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay waxbarashada u rajeeyay guul iyo mustaqbal wanaagsan waxa uu ku bogaaday inay sii wadaan hanaankooda waxbarasho guulo fara badan ay ka gaaraan waxbarashada imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay 31258 arday waxaana imtixaankaas uu ka dhacay qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaana imtixaankan uu soo bilowday 27 bishan shanaad 2019 imtixaankan ayaa guul ku soo dhamaaday kadib markii horey u fashilmay markii imtixaankii dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu go'aamiyay imtixaankaasi lagu celiyo kadib markii ardaydu ay imtixaankaasi qishkiisa helayeen inta aan imtixaanka loo fariisanin ka hor maalmihii la soo dhaafay waxay dadaal fara badan ku bixinaysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya si imtixaankaasi qish ardayda uga ilaalin lahaayeen ugu dambeyntiina waxa uu suurta gashay wasaaradda waxbarashada dadaal dheer kadib in imtixaankaasi guul godaan warka ka daawaneysay warbaahinta Banaadir online saxabiyaal waa naga inta